أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى برقنك سورة لغو مقعابي مكية مكي كسو دكتي وآياتها هذه 11 آية كوية 8 آيات وي. waxaanu soo gaarnay casharkeennii 887 ayaanu soo gaarnay. waxaan halkan ka bilaabaynaa suuraddii 93 oo qur-aanka ka mid ah. suuraddan waxaa la yidhaha suuratulluxa ayaa la yidhaah. waa kelimadaas ugu horeyso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaaranayo. waxay ka mid tahay qaacidada aheeda min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabihi. suuraddan marka intaanan u gelin waxaanu maaragtay wax yar aynu kusoo jex jirnay casharkeennu horo sayidinaa bilaal qisadiisa ayaanu kusoo dhex jirnay. dhibaatadii markaasi gaalki weynaayo umayata ibnu khalaf uu ku haayay iyo sayidinaa abubakar sidiiq sida markaasi waxaa weeye oo u soo iibiyey oo u xoreeyey. hadalladii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam sayid bilaal oo la cadaabayo markuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam sayid abubakar ayuu u tegey. markaasuu dhahay bilaal ilaahay daraaddiisaa loo cadaabaya. abubakar markaasoo caaqil ahay rasuulka calayhi salaatu wasalaamna qalbigiisa uu ku weynaayey waxau garta waxa nabigu doonaya calayhi salaatu wasalaam. qofka waxaa weeye waxaa la rabaa inay caaqil ahaato. caqligu muhiim weeye. qof haddii wax la yidhaahdo amba wax loo ishaarmo wax loo sarbeebo aan wax fahmaynin faa'iida ma laha. markaas ayaa waxaa weeye gurigiisa u tegay. markaasuu rodol dhan oo dahab ahow ka soo qaaday umayata ibnu khalafo u keenay. kolkaasuu dhahay warmaad ilaahay uga baqdi u dhahay miskiinkan aad cadaabaysid. markaasuu dhahay adigaa fasahaadisaye ka koriyow dhahay waxaad ku arkayso haddaad rag tahay. riwaayad kalaa waxay aheeday rodol dahab ahow soo qaaday. waxaa kaloo markaasi jirtay sayid abubakar waxau dhahay cindii qulaamun aswadow dhahay addoon madoobaan haayaa oo ninkan ka xoog badan kana qawi badan ayaan haayaa. adigana kugu diina ee kaasaan kuugu bedelahay midkaan diintaada khilaafsan waxa weeye ku bedelo. markaasuu oggolaaday laakiin waxau ku darsaday maca lacagtii u dhahay. rodolkii dahabka ah iyo addoonkii u isku siiyey sidaasaa la wariyey. markaasuu horeyna ka xureeyey. saciid maaragtay ibnulmusayibah waxau dhahay waxaa isoo gaaray ninka la yidhaahdo umayata ibnu khalaf. sayid abubakarow waxau ku dhahay markuu ku dhahay ma gedaysaa? haa how dhahay waa gedaayaa oo waxaan ku gedaayaa addoonka nisdaas la yidhaahdo oo ad leedahay abubakarow haddaad isiiso waa kaaga iibinayaa. nisdaas marka waxaa weeye addoonka sayid abubakar ayuu ninka madoobow ahay. waxaa laga baxshay 10,000 oo diinaara laga baxshay oo lacagta dahabka iyo 2 addoon iyo maaragtay naag addooma iyo 2 nimoo addoomana iyo ari badan ayaa laga baxsho. addoon waxau ahay qaaliyahow ahay. laakiin nin mushrigahow ahaayo sayid abubakara islaamka ku xambaarayoo islaam ayuu dhahay. markaasuu ka diidaa layidhi oo waxau yidhi weliba maalkaygaan ku siinaa islaam. markaasuu diiday. abubakar markaasuu u carooday. umayata markuu dhahay waa kaaga gedaayaa addoonka nistaasa ayaa markaasaa abubakar markaasuu waxaa weeye addoonkii uu ka siiyaa layidhi. addoonkii iyo lacagtii uu isku siiyey. ninkaas intaasoo lacaga ku fadhiyey iyo maaragtay lacagtii kaleu isugu darayoo rodolka aheeday. sayid abubakarna markaas ka hor uguma horeyn sayid abubakar xuraynta bilaal uguma horeyn addoon uu xureeyo. sayid abubakar intuusan bilaal xurayn waxuu xureeyey 6 xureeyaa layidhi. waxaa ka mid ahay ninkii la dhihi saxaabiga la dhihi caamir ibnu fuhayrata oo dagaalkii beder iyo dagaalkii uxud xaadiray
maalintii bi'ru macuunana ku dhintay asoo shahiida sayid abubakaraa xureeyey ninkaas. haween la dhihi jira umu cumays ayuu xureeyey sayidina abubakar sidiiq, iyo haween la dhihi jira sahra la dhihi jiray. haweentaas weliba markii sayid abubakar uu xureeyey oy markaasi ay islaamtay, way islaamtay markaasaa sayid abubakar xureeyey, markaasay indhihiyaa gabkayda waa indhabeeshaa layidhi. markii uu xureeyey sayid abubakar ay indhabeeshaa layidhi. qurayshti marka meesha joogto oo gaalada aheeda waxay dhaheen maa adhaba basaraha ila laata walcuza, waxaa indhaha ka riday waxaa weeye laata iyo cuzo asnaamtii ay ka tagtay oo la barakaysa jiray, mahaasaa balaayadu ka soo raacday, quraafiistayaalay ahaayeen. markaasay waxay tiri kadabuu wa baytallaahi tiri, been bay sheegeen ina loo sheegay ilaahay beydkiisaan ku dhaartee, waa intaan dhaarta markaasi beydka iyo ilaahay qeyrkiisa lagu dhaarta aan la xariminay ahayd, laakiin ilaahay qeyrkiisa in lagu dhaarto hadda ma banaana. waxay tiri maa taduru laata walcuza, hay tiri laata iyo cusa waxay duri karaan ma jirto, wamaa yanfacaan waxna ma anfacaan. caqiidadeedaas cajiibka ilaahay indhaheeriyo isla markii u soo celshaalayay. dadka waxaa weeye waxaa jira dad khuraafaad aaminaa jira oo waxyaabo khuraafaad ahoo jinniyo iyo wax baas iyo bakti ay ka qaylaayaan, diin la-aantaa yeelaysa iyo iimaan la-aanta. qofku hadduu alla ku kalsoon yahay cid wax ka qaadi karta ma jirto, bal ilaahay saasoo uu heelinayaa. marka ilaahay basarkeeda uu soo celi. haweenta la yidhaahda fihriye ayuu xureeyey iyo maaragtay gabarteeda ayuu xureeyey. waxaana addoonsan jiray naag oo maaragtay nimo la yidhaha bani cabdidaar ka tirsan ayaa haweentaas iyo gabadheeday addooman u ahaayeen. sayid abubakar waa soo maray maalin ayadoo haweentaasu qoryo ay u dirsatay hooyadaas iyo gabadheeda, markaasay waxay ku leedahay wallaahi laa actiqukumaa abadan, wallaahi weligay idin xarooy maayo. asay aflagaadada iyo wax kasta isugu daraysaa. abubakaraa markaasoo kallaa uu dhahay yaa uma fulaan uu dhahay, ma jirtou dhahay waa xuray haysaa. markaasay kallaa antay tiri iyaduna adaa fasahaadisay, waxaa hadda lagu dhibaa islaamka weeye, adaa fasahaadisay tiri markaas ee xuray. markaasuu waxau dhahay beecayna u ahay, markaasuu meeqaad gedaysaa u dhahay. markaasay tiri intaas weliba lacag tiro badan ay sheegatay iyadoo ku dhibaysa abubakar. sayid abubakar waa baxay, markaasuu lacagtiyow soo qaaday, markaasuu waxaa weeye lacagtiyow siiye markaas. waxaa kaloo soo maray sidaasay ku xuroobeen addoon ayadana markaasi niman la yidhaahdo banilmursal qolo la yidhaahdo ay addoonsanayaan ayuu soo maray oo la cadaabayo. markaasuu ayadana waa iibshay isla markiina waa xureeyey. camaar binu yaasir oo markaasi ka warramaya sayid abubakar xurayntii uu xureeyey ee sayid bilaal uu xureeyey ayuu markaasu waxau ku ammaanay shicir oo waxau dhahay jazallaahu khayran can bilaalin wa saxbihi catiiqan wa akhzaa faakihan wa abaa jahlin cashiyatan humaa fii bilaalin bisaw'ati. waxau dhahay walam yaxdir maa yaxdaru lmar'u dulcaqli bitawxiidihi rabbalaanaami wa qowlihi shahidtu biana allaha rabbii calaa muhlin fain taqtuluunii walam akun liushrika biraxmaani min khiifati alqadli fayaa rabba ibraahiima waalcabdi yuunusa wa muusaa wa ciisa najinii suma laa tumil liman dalla yahwi lgaya min aali qaalibin calaa gayri xaqin kaana minhu walaa cadlin u dhahay. waxau dhahay ilaahay khayr ha ku jaasiyow dhahay bilaal iyo asxaabtiisou dhahay, kaasoo maaragtay yaa la xureeyey. ilaahay hoojiyow dhahay ninkii ku faakihaysanaya dilkiisa oo umayo ah iyo abaajahlba cashiyadii ay labadoodu bilaal xumaanta ku samaynayeen ayagoon ka baqaynow dhahay oon ka xishoohaynin qofka caqligala waxau ka xishoodo. waxayna u cadaabayeen bitawxiidihi rabbalaanaami wa qowlihi, inuu waxiday rabbiga rabbulanaam oo khalqiga ilaahay rabbiga abuuray, iyo wa qowlihi ayuu cadaabayeen shahidtu biana allaha rabbii calaa muhlin ou dhahay waxaan markhaati ka ah ilaahay rabbigayga inuu yahay anoo ilaahay farajka sugaaya. waxau dhahay sayid bilaalow ka turjumaya haddaa idishaanow dhahay
waad idilaysaan walam akun liushrika birraxmaani min khiifati anoon maaragtay ilaahay raxmaankaa u shariig yeelayn dilka baqidiisa daraaddeeda ayaad idilaysaanow dhah rabbiga ibraahim rabbigiis ah iyo addoonkii nabi yuunus ahay iyo nabi muuse iyo nabi ciise rabbigaasoo ikoriyow dhahay nimankaana ha iigu sii kaadinin qof markaasi waxa weeye liman dalla yahwilqaya min aali qaalibiinow dhah dadka markaasi baayida iska laasimay oo nimankaa aalu qaalib la yidhaahda ah calaa kayri xaqinna ku sugan kaana minhu walaa cadlin xaq ilaahay iyo cadaalad ilaahay ka timidana aan ku sugnayn oo daalimiinta ilaah uga kori marka bilaal allah jaasiyo marka ilaahay waxau dhahay subxaanahu wa tacaala wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujzaa ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa walasawfa yarda ayuu dhahay axad bilaal sayd abubakar agtiisa waxba geystay ma jirto oo markaasi lagu abaal marinaayo hadalkoodii xumaay ayaa ilaahay ku beeninayaa subxaanahu wa tacaala laakiin arrintaas wuxuu u sameeyey ridaha ilaahay u dalbaay sabowga alla ayuu raadinaayey wala sawfa yardaa waana raali noqon doonaa hu dhah waxa ilaahay sii doono ayuu ku raali noqonayaa cid kasta oo dar allah wax u qabata ilaahay subxaanahu wa tacaala rilihiisa ay helaysaa camalkuna wuxuu u baahan yahay dar allah inuu kaa yahay wax lagu faano amba hal lagu maqla hal lagu tutuso waxba laga gaari maayo adduunkan oo dhan haddaa ku sujuudoodan ilaahay daraaddiida ula jeedin oo taaka uu sujuudo waxba lagaa aqbali maayo bismi illaahi araxmaani iraxiim suuratu luxaa barqinkii suuraddii lagu magacaabay makiyatun markay ku soo degtay wa aayaatuha aayadaheeduna 11 aayatan 11 aayadood weeye suuradda meesha aynu ka gelayno waa suuraddii 93 oo qur-aanka ka mida suuratu luxaa ayaa la yidhaahdaa marka suuradda tan markay soo degtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa takbiirsada aakhirkeeda markaas waxaa la sunneeyaa suuradda tan haddii la dhammeeyo ila suuradaha ka dambeeya in la takbiirsado oo sidaas waxaa kaloo soo arooray suuradaha ka dambeeya ilaa birabbinaas laga gaaraayo in ayadana la takbiirsado marka takbiirtuna hadda waxa weeye waa maaragtay allaahu akbara xataa ku filan amase laa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar ama laa ilaaha ila allah wallaahu akbar walilaahi alxamdu intaasoo la dhihi karaa laakiin allaahu akbar waa la dhihi karaa intaasaa ku filan marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala walluxaa barqinkii ayaan ku dhaartow dha ilaahay takbiirtan markaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanayaa ficilkiisa iyo qowlkiisaa laga qaadanayaa iyo amarkiisa weeye waxaase la isu khilaafay takbiirta suuradda awelkeeda miyaa mase waa khaatumadeeda haddii la yidhaha masala takbiirta suuradda awelkeeda waaye khilaafkaasaa jiree xaggee ku takbiirsanayaa wuxuu ku takbiirsanayaa markuu yidhaahdo walluxaa waleyli walluxaa markuu yidhaahdo ayuu allaahu akbar leeyahy markaasuu kabacdi waleyli dhahaa saasaa culimmada qaar sheegeen waayahay haddii marka amba aakhirkeeda ayuu takbiirsanayaa taas waa iska caadiyo bacda sakta latiifa ayaa markaasu wuxuu leeyahay allaahu akbar ama laa ilaaha illa allaahu allaahu akbar ama laa ilaha illa allahu allahu akbar walilahi alxamdu sidaasuu dhahayaa khilaafkan hadda waxaa dhaliyena waxay ahaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxuu takbiirsanayaa la yidhi qirada markuu dhammeeyey say jibriil aakhirkeeda u takbiirsaday qiradiisa awalkeedana rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaguna waa takbiirsaday marka sidaas laakiin sida hadda loo badan yahay waa markii suuradda la dhammeeyo bacda sakta latiifa ayaa markaasaa allaahu akbar la leeyahy walluxaa ayaan ku dhaartowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala barqinkii ayaan ku dhaartowdha ilaahay duxadu waxa weeye awalu nahaar waaye maalinta awalkeeda weeye amase maalinta dhammaanteed waa la iska dhihi karaa hadda luxada ayaa meeshaan la hormarshay oo leylka laga hormarshay suuraddii hadda aynu kasoo baxrayno suuratu waleylne leylkaa la hormarshaa layidhi maxaa yeele waxa weeyaa layidhi mid walba masiya gaara siyaado gooniya ayuu habeen iyo maalin iska leeyahay marka mar waxay keenaysaa in la hormariyo
oo leylka la hormarsho marna luxada in la hormarsho ayay keenaysaa oo mid walba waxaa weeye masiya gaara ayuu leeyahay marka mar walba in mid kaliya oo leylka la hormarsho ma noqonayso mid walba ziyaada gaara iyo khawaas gooniya ayuu iska leeyahay marka midba mar la hormarsho marka sidaasay ku noqotaa la yidhi ilaaha ku cilmi leh marka hadda waxay culimmadu yidhaahdeen xigmada loola jeeda maxay tahay luxada oo markaasi saacad ah in la sheego leylkana dhammaantiis la sheego wa leyli la dhaho ilaan luxadii markii la yidhaahdo waa saacad ka mida amba saacado yaroo ka mida weeye maalintii ka mid ahe waxaa la leeyahay waxaa la ishaarayaa saacad oo maalinta ka mida waxay u dhigantaa ha la yidhi habeenka dhammaantiisay dhaheen culummadu sida rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam jamiicul khalqi oo dhan ugugu dhigmo ay ugu dhigantaa ha la yidhi ama waxaa weeyaa la yidhi luxadu waa waqti suruuraa la yidhi waqti farxadeed waye maxaa yeele waaga hadduu baryo cid kasta farxaday lasoo baxaysaa shaqay aadaysaa walaxay qabsaysaa habeenkuse waxaa weeye waqtu waxsha weeye habeenka waa la cabsadaaho waad aragtay cid walba cabsiyaa ku dhacaysa mugdigaa lagaba halkaamaaba halkaaga soo baxa hadda almaa tuugkaaga soo baxa waqti saasa weeye taas marka waxay ishaaraysaa oo kaleentood adduunyada farxadeedu inay ka yartahay maaragtay aqalu maaragtay min shuruurihaa weeye shuruurteeda inay markaasay ka yartahay oo adduunyada sharteedu ay badan tahay aad iyo aad ayaa adduunyada sharteedu u badan tahay farxadeeduna ay yar tahay maxaa yeela hadda habeenku waqtu waxsho weeye luxaduna waa saacad oo maalinta ka mid a taas marka waxay ishaaraysaa ay dhaheen culummadu in markaasi waxa weeye adduunyada sharteedu ay badan tahay iyo cabsideeda iyo dhibaatadeeda farxadeeduna aad ay u yar tahay waxaatau dhahay imaamuna ashaafici mixanu dunyaa kasiiratun laa tanqadii wa suruuruhaa ya'tiika kal acyaadi u dhahay adduunyada mixnadeedu waa fara badan tahay mana go'dow dhahay farxadeeduna waxaa weeye sidii ciidoo kale ay kuugu imaahaysaa sanadka 2 ciidoodaa ku jirta labadaas ciidood say sanadka ku tahay ayaa farxaduna adduunyada ay ku tahay waleyli habeenkii aan ku dhaartow dhah ilaahay idaa waqtigii sajaa uu daboolo qadaa bidulaamihi mugdigiisa markuu wax ku daboolo amase idaa sakana markuu xasilo waxa loogu dhaara waa kan jawaabulqasam ka muqsamu calayhi maa wadacaka kaama tegin ow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow rabbuka rabbigaagu kaama tegin wamaa qalaa mana kuu caroonin hadda suuraddan waxay soo degtaa layidhi kufaaru maka ayaa rasuulkeena waxay dhaheenaa layidhi waqti oo waxyigu nabiga xoogaa ka soo ta'akhuray 15 maalmood iyo ka badan iyo waa la sheegay ayagoo ku faraxsan arrintaasay waxay yidhaahdeen inna rabbahu wadacahu wa qalaahu muxamed rabbigiisi waa ka tegey waana u carooday ayaamahan wax u sheegaaya male ilaan sideedaba waxaa weeye cadowgaagu wixii markaasi culayskaaga mar walba asaga farxadiisa waaye sabab nusuulka laakiin aayadahan waa la isku khilaafay oo 4 qowl ayaa la isugu khilaafay waxaa la sheegay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu xanuunsaday 2 habeen ama 3 habeenaa la yidhi waa waqtigoo maka joogay naagti la dhihi jiray umu jamiil oo maaragtay abiilahab xamaalatal xadab waa ku tegi doonaa ayaa u timid rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cadowga koobaadaheeday markaasay tiri yaa muxamed innii la arjuu an yakuuna shaydaanuka tarakaka lam arahu qarabaka mundu leylatayn ow 3 waxay tiri muxamedow waxaan rajaynayaa shayddaankaagii inuu kaa tegey malagii usoo waxyuha ayay shaydaan ku magacaabaysaa ilaa idaa shaydaamadeh qofku markuu asagu xun yahay wixii wanaagsan ayuu xumaan ku tilmaamaa malag ilaahay oo soo diray waxyi ayay shaydaan leedahay ilaa idaa shaydaamadeh waa kaa tegay tiri mana arkaayaba ayaamahan inuu kuusa 2 habeen iyo 3 habeen wax kuuma sheegow haaye markaasaa soo degtaa layidhi suuraddan qowlka labaad waxaa weeye nabiga waxyigaa ka ta'akhuraa layidhi ilaa uu uga dhibtoodo markaasaa waxaa weeye waxyigaa u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam muddo markuu joogay asagoo kacbada markaasi wejigiisa ku haaya oo ilaahay baryaaya markaasaa aayaddan ku soo degtay sababtan hadda ka hor waxaanu ku soo marnay suuratul kahfi aan ku soo marnay
midda saddexaad waxaa la sheegaa khawlata binti saclabata haween la dhihi jiray ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u qaadumad u ahaaday. marka iyadoo hadlaysay waxay tidhi ey oo yar ayaa guriga nabiga soo galay calayhi salaatu wasalaam, sariiraha hoosteeduu soo galay. sariirta hoosteeduu galay markaasuu halkaasuu ku dhintay. waxyigii baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka ta'akhuray, maxaa yeelay malaa'igtu waxaa weeye ma galaan guri oo masawiro ay ku jiraan ama si ey oo ku jiro ma galaan. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigaa dib waa dhacay tiri ilaa markaasi waxa weeye muddo waxyiga uusan kusoo degin. markaasuu nabigu waxa u dhahay khawlay gurigayga maxaa kusoo diriyey? jibriil waxa weeye ii imaamaaye. khawla markaas waxay tiri gurigiyaan soo xaaqay, markaasaan xaaqinki waxaan sariirta hoosteeda ina ku garaacay ayaan waxaan ku arkay tiri ey yar oo meesha ku meeyday. markaasaan soo baxshay tiri, markaasaan derbiga gadaashiisa ku tuuray. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaas isla markaasba waxaan arkay tiri ayadoo markaasi garkiisa oo lululanaayo. waxyigu markuu kusoo degaayana nabiga calayhi salaam raacda ayaa ku dhici jirtay oo garkiisa ayaa lulula jirayo wax gariiraya camalo ahay waxyiga xoogiisa. markaasuu khoylay dasiriini ayuu dhahay dharkan hugsanay isii. jibriil markii uu kusoo degay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaad iiga daba marta u dhahay. markaasuu dhahay sow ma ogid maxamedow annaa laa nadkhulu beytan fiihi kalbun walaa suuratun, inaana anagu gelin haddaan malaa'ignahay guri ay ku jira amba suuradu ay ku jirto. midda afaraad waxaa la sheegay yahuud ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka su'aaleen ruuxay ka su'aaleen iyo maaragtay yaadalqarnayn iyo asxaabulkahfi waataan soo mari jirnay. markaasuu nabigu waxa u dhahay sa ukhbirukum qadan biriyaan idiin sheegi doonaa insha allahuna ma dhiino mashiicadu halmaam walaa taquulanna lishay innii faacilun daalika qadan ilaa an yashaa allah. marka waxyigii baa ka ta'akhuray ilaa markaasi jibriil waqti dambe ugu yimaado aayaddaanu ay ku soo degto. markaasoo wixii laga su'aalna u sheegay. arrimahaasaa la sheegaa 15 maalmood. ibnu cabbaas saasuu dhahay, ibnu jariir waxau dhahay 12 aheeday, muqaatil waxay dhahay 40 aheedu dhahay. laakiin hadda ayaamaha iyo cadadka qur-aanku hadda noo sheegi maayo. say jibriila u yimid markaasuu rasuulku waxau dhahay maa ji'ta xataa ishtaqtu ilayka u dhah iima imaanin miyaa ilaa aan kaaga hiloobo. markaasuu say jibriil waxau dhahay anaa kaa hilow badan u dhahay rasuul allow, laakiin addoon la faraayo ilaahay amarkiisaansa ku socdaa. markaasaa waxaa soo degay wamaa natanazzalu ilaa biamri rabbika lahu maa bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna daa. waataan meelaha suuradaas soo mari jirnay, suuratu maryam iyo suuratulkahfi iyaan soo mari jirnay iyo suuratulisra. ilaahay marka wuxuu dhahay intaasaan ku dhaartaye maa wadacaka kaama tegin sida ay leeyihiin shayaadiintaanu rabbuka rabbigaagu wamaa qalaa mana kuu caroonin oo ilaahay kuuma caroonin. alla subxaanahu watacaala rasuulkiisa u caroomaayo, laakiin ayaga ayaa warkoodu aad iyo aad u xun yahay shayaadiintaasu. markaasuu alla haddana wuxuu dhahay walal aakhiratu aakhirada khayrun laka midkuu khayr badan weeye min al uulaa adduunyada kaaga khayr badan. walal aakhiratu aakhirada dambo ayaa khayrun laka kuu khayr badan min al uulaa adduunyada kaaga khayr badanow dha ilaahay. khayrun lakaw dhah ilaahay oo lakadaasaa ilaahay ku qayday. waxa markaasi khayran laka loo leeyahay, waxaan dhihi lahay khayrun laka loo leeyahay waxaa weeye aakhiradu sideedaba qof kasta khayr uma ahan. qof kasta khayr uguma sugna aakhirada. maxaa yeele dadku waxaa weeye 4 qaybood waaye. qof waxaa weeye labada daarood khayr ku helaaya waa dadka ahlu daacada ah oo aqniyada ah. ahlu daacana waa yihiin adduunkana xoolay ku haystaan. waxaa la yidhaha markaasi dadkaasi waa man lahu lkhayru fi daarayn, labada daarood ayuu khayr ku haystaa. qaybta labaad waxaa weeye man lahu sharu fiihi maa weeye qof waxaa weeye labada daarood sharu ugu sugan tahay. kaas waxaa waaye gaalka oo haddana faqiirkaa waaye. gaalnimana waa haysaa, adduunkina faqiiruu ku wax ma haysto, adduunya aakhira u khasaaro kaas. midda saddexaad waxaa weeye man lahu suuratu khayrin fi dunya, wax uun suurad khayra oo uun khayr suuradiisa khayr saan wax ka ogeyn qofay u sugnaatay adduunyada. wa sharun fil aakhirati aakhiradana shar uu sugnaata. waxaa weeye gaalada oo aqniyada waaye, gaalada xoolaha haysta xoogaa wax
سورة خير أي هي سادة قالدان ما أنت أدونك مالك هي ستة wax suura been waaye aakhirana shara ugu sugan midka afraad waxa weeye man lahu suuratu sharrin wax suurad shara ay u sugnaatay fi adduunyada ugu suganta wa khayrun fil aakhirati aakhiradana khayr ugu sugan yahay adduunyada wax ogaa suurad shar u eg aga haaya kuwaas maxay yihiin waa fuqarada mu'miniinta weeye dadka fuqarada oo mu'miniinta waxba haysan wax adigu suuratu shar iska wax saasa aan haynin ayaa adduunyada ku haaya laakiin waxa weeye aakhira ayaa khayr u jira علماء اللي يرى مارت أهل الإشارات آيادا وحي هذين وحي إشارة يسا نبينا عليه الصلاة والسلام دائما إنه مركز سي كراي أو ترقى أو كجرة كمالات أو أن رماد لهن وي محايا رسولك عليه السلام مقام كيسة أو مستقبلك وهو كسر هيا مقام كيسة لصور دافع وهكذا أساس وي مركز وعنا عضينا حديث نبغى أو نهي إني ليغان على قلبي قلبي أيا للدبولة فأستغفر الله في اليوم 70 مرة معلنت تضباطا جير أيان إلهي رافد ويديستا استغفارت النبي عليه الصلاة والسلام مركب وحاي مفسرين نبي عليه مقام أيو كوريا أو كيك على كسر هي مركا سو كي أو كسو جوري متك هاتن وجوجو مركي الله نسبيه وهو أركايا إنه كي بدم هاي دم مرنا بك نعمة أصجع معايا ولا الآخرة خير لك من الأولى وهي تاسي كتصنيسا نبي عليه الصلاة والسلام دائما ترقى أيو كجرا مقام كيسة وقت هراء الدنيا إلهي كيناي يا هدا وسيوي هاي إلى أبد الأبد نساس وي ولا الآخرة آخرة الذنب أيا خير لك كاغا خير بدنو الإلهي محايا لما فيها من الكرامات لك إلهي كراماتك كوسي دون وحول أو كرامات يا شرفة هل كاسا إلهي ودياري الدنيا ذا إيا كذا وحوي ماشى سوى خير بدن الدنيا ذا نوحي إلهي سبحانه وتعالى أدري أيا وجودنا يا رسولك ولا سوف جار دنبنه يعطيك واكسينا يا هود إلهي ربك ربك واكسينا يا آخرة أيوكسينا يا ثواب جزيلة فترلا وانا حال نقض أنت ولا سوف جار دنبون إلهي يعطيك ربك واكسينا يا فترلا وانا حال نقض أنت هود إلهي آيادان مركي النبي عليه الصلاة والسلام أي كسو دكتي رسول كان وحوده إذن لا أرلا وواحد من أمتي في النار يوده حال نقمايو إلى هل أمديدة كمدة وحاوية نارت أو كجرة حال نقمايو إلا إلهي واتودا رسولك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم الإله رسول وحائدين ذي نفتينا كمدة عزيز عليه ما عنتم وحي نبكينا أي دبايان حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم مركاسونا وحودا عليه الصلاة والسلام حال نقمايو دهي إذا مد مارتي أمديدة كمدة أو أمد أجيبتي أو مركاسي وحاوية نارت أو كجره ساسونا رسولك عليه الصلاة والسلام ولا سوف يعطيك ربك فتر الله الإله مركا هذا علماء آخرة كلية حتى مارتي إن عموم لقد دقافي عنينا آخرة كلية أن مركز الوخاسيني معايا لسينتا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرلا قاسر كمان آخرة بل عام وي في الدنيا والآخرة وي ووعد أو شملنا أو كل منا وحي النبي إلهي أوسيي أو كمال نفسه نف كاملة وي أمر كيسو ظاهري أدونك دينتي سو كرنغوتوي وحي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي أكيدي عد أغاكر تمجرته أما سيسمدان وحوي وشفاعة العظمى هاليري أما علماء قارئ وحيرين وحال لقوضا كن سرود أو لولة أو أبيضة ترابتيذنا مسك أي تاي ووحكا سوء اللائقة أي كجران وي لكن وحوي إن لا إسكعام يلا الربا مركا سوء إلهي سبحانه وتعالى أيها وحا نبقى الله صيحايو إلهي باكو علمه سبحانه وتعالى واحد أمديدة كميدة أسوء جنة نار تكو جنة رحال نقماو ده نبو وموحدين تعال لقوضا ومثل الإجابة ده لقوضا محايا للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة وشفيعة أيها الوصاب حنايا بعض العارفين وحيد هذين قرأنا في الضحى ولا سوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العضاء وحاشا يا رسول الله ترلى وفينا من يعذب أو يساء وحان أخرنا دهن والضحى ولا سوف يعطي وحان أخرنا سورة الضحى أخرنا ومركا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أن أخرني دهن قلوبتين مركة سيسمداس لو سيهايو أيا فرح جليسي دهن لكن رسولك إلهي وحاد كان زهنتها إناد رالي إسكان نغطو أيضا قف لعذابايو أما الله لباتيها أنو جرو أو قف أنك عذابك كجرة إناد رالي نغطو أيا كان زهنتها مر رالي نغونا رسولك عليه الصلاة والسلام ولسوف جار دنبود إلهي يعطيك ربك ربك واكو سينيا فترضى وانا رالي نغضو انت هود إلهي مستقبلك أياد رالي نغضو انت ساسود إلهي سبحانه وتعالى marka hadda waxa weeye suuradan waxaan ku dhameyn doonaa 10 keen dambe hadii alla yiraahdo 10 keen inta suuq eeg yahay wallahu subhanahu wa ta'ala salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh